shirkii maanta ee golaha wasiirada Soomaaliland ay yeesheen ayaa waxa laga soo saaray qodobo door ah waxaana qodobadaasi kamid ahaa qodob tilmaamaya in Soomaaliland ay gardarro cad u aragto safarkii wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ku yimi qaybo kamid ah gobolka Sanaag. Cabdikariim Siciid Saalax ayaa qodobada kala amuurtaasi noo haya. In dowladda Soomaaliland ay gardarro cad u aragto faragelinta ay Soomaaliya ku samaysay hawada Soomaaliland sidoo kalena ay qaar kamid ah maamulkeedu soo galeen xuduudaha Soomaaliland taasina ma aha mid ay Soomaaliland u dulqaadan doonto wixii hadda ka dambeeya. Qodobka labaad ayaa u dhignaa in la xoojiyo go'aanka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta ay ka soo saartay joojinta dhulka danta guud ee qaranka, in la joojiyo qabyaaladda loo isticmaalo warbaahinta kala duwan ee dalka ka howlgasha. Qodobka afraad ayaa ahaa in xubnaha hoos ku xusan loo saaray in ay ka shaqeeyaan xal u helidda qiimo dhaca shilinka Soomaaliland. Xubnahaasi oo kala ah wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi, wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland, warshadaha iyo dalxiiska Maxamuud Xasan Sacad, wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Maxamed Axmed Maxamuud Cawad, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdulaahi Soofi, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Xasan Maxamed Cali Xasan Gaafadhi, iyo gudoomiyaha bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Ibraahim Doobaale. War-saxaafadeedkan ka soo baxay madaxtooyada waxaa ku saxeexnaa Naasir Yuusuf Daahir, agaasimaha saxaafadda madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. waa qodobadii ugu horreeyay ee noocooda oo kala ah ee golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay soo saaraan tan iyo markii uu magacaabay madaxweynuhu. Cabdikariim Siciid Saalax, Home Cable TV, Hargeysa.